dhalada waqtigan jirta waxay samaystaan xidhiidho jacayl oo badan. qalbiyo si daacada u jecel ayay khiyaamaan oo been u sheegaan. mar walbana waxay isku dhahaan waan ku jecelahay, balse jacaylkoodaas waa jacayl been ah oo waxba kama jiraan ah. dhallinyarada waqtigan jirta jacaylka khalad ayay u fahmeen, oo jacaylka waxay u haystaan in afka laga sheegto oo keliya, balse ma dareemi karaan jacaylku wuxuu yahay, mana fahmi karaan jacaylku wuxuu yahay. way kula hadlayaan, waanay ku ammaanayaan oo erayo fiican ayay kugu ammaanayaan, kadibna waad aaminaysaa oo waad jeclaanaysaa. kadibna way ku qiyaamayaan oo way kaa tegayaan. ha aaminin qof walba, hana jeclaan qof walba, hana ku kalsoonaan qof walba. dadka qaar ayaa ku dhahaya waan ku jecelahay, kadibna waad soo dhowaynaysaa oo waad aaminaysaa, kadibna way ku qiyaamayaan oo way kaa tegayaan. jacaylkii khalad ayaa loo fahmay, oo dhallinyaradu jacaylkii khalad ayay u fahantay. walaalkayga sharafta lahow iyo walaashayda sharafta leheey, iska ilaaliya jacaylka beenta ee socda. waa walaalkiin maxamed wardi cali oo idileh muuqaalka ku xiga insha allah. inta ku wada kulmi doono waxaan iskaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.